war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa lagu faahfaahiyey dagaal ka dhacay duleedka deegaanka Goof Gaduud oo qiyaastii 30 kiiloomitir u jira magaalada Baydhabo. Koonfur Galbeed ayaa shaaca ka qaaday in dagaalkaasi ay ku dishay in ka badan 10 ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab kadib weerar ay ku soo qaadeen saldhigga deegaankaasi. Sidoo kale waxay wasaaraddu sheegtay in ay gubtay gaadiid dagaal oo ay lahayd kooxda Al-Shabaab sida ay hadalka u dhigtay. Qoraalka ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in dagaalkan lagu jabiyey kooxda Al-Shabaab ay iska kaashadeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta ee Koonfur Galbeed. Dhaqdhaqaaqyadan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan abaabul culus oo ka dhan ah Al-Shabaab ay wado Koonfur Galbeed oo kaashanaysa dowladda iyo dadka deegaanka. Madaxweyne Laftagareen ayaa shaaciyay in ay diyaar garoobeen oo ay si weyn ugu diyaarsan yihiin dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyada oo laga duulayo baaqii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in istiraatiijiyad dagaal oo sareysa ay dejiyeen isla markaana gobollada Shabeellaha Hoose, Bay iyo Bakool looga saarayo Al-Shabaab bil gudaheed, sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen.